imaamu Muxamed binu Salaam al-Bikandi oo noolaa sanadkii 160kii hijriga ilaa 225kii hijriga ahaana sheekhii imaamu Bukhaari ayaa maalin isagoo fadhiyo golo cilmiga lagu yeersanayo ayaa waxa ka jabay qalinkiisii markaas ayaa uu dhawaaqay oo uu yiri yaa hal diinaar qalinkayga iibsanaya markaas ayaa ay dad badan qalimaantoodii ku soo tuureen iyaga oo ka raja qaba inay hal qalin ku helaan hal diinaar hadda u fiirso halka diinaar waxa uu u dhigmaa 1 garaam oo dahaba imaamkan waxa uu yiri isaga oo naftiisa ka sheekaynaya 400 oo sheekh ayaan xadiiska ka baratay cilmiga dalabkiisana waxaan ku bixiyay 40,000 oo diinaar fidintiisa iyo gaarsiintiisa ummadana waxaan ku bixiyay 40,000 oo diinaar waxaan xifdisanahay 5,000 oo xadiis bal u fiirso iimaankanka ku jira iyo sida uu cilmiga raadintiisa iyo barashadiisa ugu hagar baxay marka aad waqtiga qiimihiisa dareento wax kasta raqiis ayaa ay kula noqonayaan aan ka ahayn waqtiga iyo ka faa'iideysigiisa imaamka la yiraahdo ibn Abi Hatim oo magaciisa oo dhameystiran la yiraahdo Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin al-Mundhir oo noolaa sanadkii 854kii ilaa 938kii hijriyada oo kutub badan alifay haddii aan qaar ka sheegno kutubta alifayna waxaa ka mid ah kitaabu tafsiir caamatuhu aathaarun biasaaniidi min axsani tafaasiir kitaabu cilal alxadiith kitaabu jarxi watacdiir taqdimatu almacrifati lijarxi watacdiir kitaabu الزهد كتاب القنا كتاب الفوائد الكبيرة كتاب الرد على الجهمية كتاب الثواب الأعمال كتاب المراسيم يقار كلا هذا إمامكنا ayaa la weydiiyay waxaa soo cilmiya sideebada abaha uga dhaxashay markaas ayaa uu yiri markuu cuntada cunayo waan soo ag fariistaa kadibna cilmiga ayaan ka yeersadaa markuu soconayo waan la socdaa oo waan ka yeersadaa cilmiga markuu musqusha ku jiro codka ayaan kor ugu qaadaa si uu u maqlo oo uu hadhow khaladka iga soxo bal haddaba ila fiirsha wiilkan hanka ku jira iyo sida uu waqtigiisa uga faa'iideysanayo ma ogola inay daqiiqad daafto kuma talagelin inuu waqtigiisa ku lumiyo madadaalaan qiimo lahayn madadaaladiisu waa inuu wax akhrinayo ama wax qorayo kana waa imaamu Abu Qasim al-Hudali waxa uu leeyahay isaga oo naftiisa ka sheekaynaya cilmiga qiraa'adka ama noocyada quraanka loo akhriyo waxaan ka bartay ama aan ka soo qortay 365 sheekh haddii aan maanta aan ogahay in iga badiyo cilmigana waan aadi lahaa meel kasta adduunka ka jooga imaamu ibnu Jazari oo ka sheekaynaya waxa uu leeyahay adduunka oo dhan ayaa uu isku maray isaga oo raadinaya cilmiga qiraa'adka mana ogi qof u safray oo maray inta uu sheekhan maray oo uu culimo la kulmay hore ayaana loo yiri guushu waxa ay saaxiib la tahay oo ay soo dhaweysaa kuwa iyada raadiya noloshu waxa ay isu ka tusinaysaa sida aad adigu doonayso inay kuugu muuqato ee isu ka tusin mayso sida ay iyadu doonayso inay kuugu muuqato والسلام عليكم